بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan siyara xusuusinaynaa shukriga alle rabbi subxaanahu watacaala. awalan ilaahay wuxuuna leeyahay bacda acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaani araxiim hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay'an madkuura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا. ربي isagoo rasuulkiisii la khitaabahaya ayuu wuxuu yidhi makuu yimid yani hal ataa cala alinsaani insaankii yani qabarkiisii makuu yimid wey xiinun min addahri يعني وقت يدا كمد إنه لم يكن شيئا مذكورا من وحلا قلت الماما إنه سنهين ومركي إلهي أبونا آدم وأفرتن كسر التمثال يعني وحلا قلت شيء قبل مقرة ما ننجرين وقتك مكسور مري مكوت متبالير إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنسان كي وحن كابورني ديعان انقرت ديعان بانو كابورني وحن ويا النبي إلهي ليه مقل إيوه أرق إلهي وحن ليه إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا. وددي نوانو تصني يا إنو إلهي سكو شكريو ما إنو إلهي سي وكو كفري labadaas waa mid weyn. baryahan dhibaatada jirta ee maaragtay xanuunkan ama fayruskan corona ee maanta aqaladii yaa inagu xiray in badanna ay geeriyoodeen intii muslimiin allahu naxariisto in badan ay xanuunsan isbitaalada ay ku jiraan ilaahay subxaana watacaala ha shaafiyo qaar badan aqalada ku xanuunsan iyagana ilaahay ha shaafiyo qaar badan oo bukaan socda ayagana sidoo kale. marka nicam fara badan oo inaan ilaahay ugu shukrino ay maaragtay daruuri tahay ayaa xanuunkan ina xusuusinahaya. yacni rabbi subxaanahu watacaala markuuna leeyahay wain tacadduu nicmata allaahi laa tuxsuuha haddaad isku daydaan inaad tirisaan nicmada ilaahay ma koobi kartaan. suurat naxl aayadda 18. marka nicam fara badan oo ugu horeyso fii masaajidyada meeshaynu ku cibaadaysanayn ilan ilaahay wuxuu noo abuurtay waa cibaado wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun. tii maalka oo la shaqaynahayey dakhliku soo gelahayey tii caafimaadka oo tan haddii xanuunka maaragtay waxna isbitaalada la jiifaan aqalada la jiifaan bukaan socodna yihiin. idan wax la soo koobi karo nicmada ilaahay ma aha runtii. marka nicmadaas in ilaahay loogu mahdiyo ilaahay wuxuuba adduunyada noo keenay ee aabbihii hooyana noo dhaleen liajli shukr sidii aynu kol dhoweyd aayaddii suurat insaan aayadda 3 inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakira wa imaa kafuura. adugu waxaa maanta adduunkan lagu keenay liajli shukr inaad ilaahay ku mahdiso. waxaana waajib ah qof kastoo insaan ah inuu rabbigiisi ku xamdiyo kuna shukriyo amuur oo ideelkeed caafimaadka ha noqoto maalka ha noqoto sacaadadii ha noqoto. haddii arrinkaas waxa keliya maanta waajib inagu ah inaan gaar dhigno nicmada ilaahay subxaana watacaala na siiyey yaa suuliddeedii sabayna ku gaar dhigaynaa oon ilaalinno waxa aynu ku ilaalin karnaa inaysan naga zuulin waxa weeye shukriga ilaahay isagaa ina yiri subxaana watacaala lain shakartum la aziidannakum haddaad igu shukrisaan waa idin ziyaadin.
maanta hadduu nicmo ilaahay ku siiyo inay kuu zaa'ido kuu yaa barakowda aad rabtid ilaah baad ku maxdin wax kale ma aha bas inaad rabbi subxaana watacaala aad ku shukriso taasna waa midda ugu maaragtay yar oo aan samayn karno wey idan hadduu ilaahay subxaana watacaala dhibaatada maanta kala xirankii isu socodsho la'aantii iyo haddii ilaahay kuu roon yahay waxaan ilaahay niqamka naga qaado waxaa waajib ah rabbi subxaana watacaala inaan sujuud shukri inaan u tukano aanu u sujuudna aan idhaahno sujuud shukri markaad waxaad ku faraxdo yaa aad muddo sugaysay yaa ilaahay ku siiyo sida masalan waad xanuunsatay caafimaadkii baa maaragta xoogaa kaa dheeraaday yaa markaad caafimaad ilaahay ku siiyo inaad maaragtay sujuudu shukri la dhacdo muddo dheer baad maanta yaa dadkaagii iyo ehelkaagii ka maqnayd waad ku soo laabatay inaad sujuudu shukri u dhacdo aslanba salaada aan tukanayna iyadaaba shukri ah maxaa yeelay qof kastoo maanta salaada xirto markuu faatixada bilaabay muxuu ku bilaabayaa bacda يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما حد إذلكي الله اسكله ما حد إذلكي نعم إذن وحن حسوسنا إن إلهي كشكر إنه مربى وليسنا لقى قاضه مساجدتي هدي نوصل نغضان عفمات كدو نوصل لافتون dhaqaalihii inday soo laabtaan wax allaale wixii niqam ah ee maanta haddii ilaah ina haysta inaan rabbi subxaana watacaala uga mahadino sidoo kale bishii barakada badnayd ramadaan waa inaga dhammaatay alxamdu lilaah ma aragtay intaasayti yaa iyada lafteeda inuu ilaahay yaa ku gaarsiiyey ramadaankeeda يا وحوية والنعم إلهي سبحانه وتعالى إلا غم هذيه وباهن إن رمضان واتجي هدو تجي رمضان حقوق إلهي ما يسنتجي إن الله نقول يا بالعابد وكله يا ربي رمضان ورب الشوال ورب يا ذي القعدة وذي الحج ومحرم يا ربي قدوي متجن إلهي حقيسنا متجن إن الإلاوين ما ركتي لا جوكتيو صلاة دي قيامكي دعادي قراءة القرآن كي يا أيام حسوسين وحايل من يا وحياها نعمك كده إمن كره وحيابها وأدونك كوغان كره إن ما ركتي عماشي الصالح هذا اللي أقبلي يا إن ودائمه سيدا ما أردت سونك سننك سنيني قميص أيام البيض يا إمال مها سيدا إن 10 يا ليالي العشر أو كلا ما أردت سونك هودا إن أشهر الحرم يا سونك هودا يعني وحياوها ما أنت إلهي سبحانه وتعالى لو قد دواب وحاك له حسوس مضن مر أن سدح شيء إن هذا إلا وين يا سدح هذا الشيء وحويه هذا النعمة إلهي سبحانه وتعالى يا أموقة قدسيه يا فاحمد الله إلهي كم مهدي هدي أرزاق ذا إكاد هذانا يا استغفار سوء يا هدي كو أصيب تشدو يا بدي لا حول ولا قوة إلا بالله سدح ذاس يا الريموت إن دائما حسوس ناتو آذن إلاوين وحن أسيب فمن الله وحن قف مني ومن الشيطان فأسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم أن يغفرنا وأن يجعلنا من عباده الشاكرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد